xildhibaanadii dhowaan lagu dhaariyey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo caawa lagu dhaariyey magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ku-meel gaarka golaha shacabka oo sheegay inay soo weerareen ciidamo ka tirsan dawladda. Doorashada gudoonka aqalka sare oo maalinta biri ah lagu wado inay ka dhacdo Muqdisho iyo guddiga doorashadaasi oo maanta kormeer ku tagay teendhada Avizioni. Kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Karaash oo cafis u fidiyey in ka badan 1,000 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada magaalooyinka maamulkaas. madaxweyne Dani oo ka soo horjeestay magacaabis maanta uu sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. iyo tirada dhimashada qarax ka dhacay Nigeria oo korortay. markale ismaqal wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa 25 bisha Abriil sanadku waa 2022 warkan caawa uu soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen isagoo faahfaahsan Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la diyaara. waa maasantahay wariyana Xasan Maxamed Xuseen bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka dhameystiran. xildhibaanadii dhowaan lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa caawa lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. dhanka kalena gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka ayaa sheegay inay soo weerareen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya. wariyana Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan la diyaara. magaalada Muqdisho waxaa saacadihii aan ku soo gudubnay lagu dhaariyay 16 xildhibaan ee laga soo doortay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. dhaarinta xildhibaanadan waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Axmed Dabancad iyo xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Cabdi Buux. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID. xildhibaanadan ayaana ka mid noqonaya kuwa laga soo doortay deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland. gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Xaaji Axmed Dabancad ayaa sheegay in la soo weeraray isaga oo hadalkiisa sii raaciya in mar walba loo maleego shirqool fulintiisa loo adeegsado ciidamada dawladda, balse waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay dhammaystirka doorashooyinka xitaa haddii ay naftooda ku weynayaan. waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno. meelo badan baan loo diiday, booliiskaa diiday, hoteel baa nimid dad gaari leeyihiin. markii tii dawladda midii Viilla Hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadanay. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta bugta Allah u boogadhayo. waxaa haddana habeenkii markaan galabti ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay. ayadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa gudoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga. intaas waxaan ugu ayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meesha kuleelka ku samaynay. waan aragnay inaan sii wadi karin, waa ka soo baxnay. waxaan isnaa aan teendhada Avizioni nabadgelyo u doonano. waana la kaga daba yimid taliyii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah. waana la ka soo eri, waana la diid. meel baan fariisanay annagoo la waajibaadkiina guta. waa suurtoob weey. irdii oo dhan baa la xiray. hadda markii ugu dambaysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey, waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana Allah ka samirsiiyo. cidda u magi doonto ma aqaan. inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelka. waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin. waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dawlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato. waa ku sii badanaysaa weli dadku ma bisla intooda badan. maxaa yeelay intaa waxa samaynaya waa ciidamadii amniga, waa madaxdii baa arkaysa. annagu se inaan gudanno oo haddaan dhimanaynana xaq ku dhimanno ayaanu ku samaynay. waanu ku faanaynaa. haddana insha Allah berri iyo saa dambe waxaa dhici doona inay yimaadaan gudoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoodii. sidaasaan Soomaaliya ugu hambalyeynaa. waxa dhacayna in la ogaado Soomaali meelay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhab ahayn dawlad hal la dhiso. waxa laga helayaan u garan maayo, laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa, ciidaan u hiilinaynaa, ummadaan u hiilinaynaa, nabadaan u hiilinaynaa. dhanka kale isla Muqdisho waxaa ku sugan 16 xildhibaan ee laga soo doortay magaalada Garbaharey. xildhibaanadaasi ayaana waxay doonayaan in la dhaariyo iyaga oo sheegay in ay shahaadada caddeynta xildhibaannimada ay wataan.
waxaana maanta lagu arkay iyaga oo taagan halka laga galo xirada afisyooni halkaas oo loo asteeyey in 27 bishan lagu doorto gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa. waa mahadsantahay wariyeyna cabdiraxmaan axmed gacal. doorashada guddoonka aqalka sare ayaa maalinta beriyaha lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho iyo guddiga doorashada ayaa maanta kormeer ku tegay teedhada afisyooni. sakariye maxamed salaad ayaa warkalna diyaara. guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kormeer ay ku tageen goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka aqalka sare ee teendhada Efisoni ee xeyndaabka xalina ee magaalada Muqdisho. halkaasi oo qorshuhu yahay in lagu qabto doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku xigeen. guddiga ayaana qiimeyn ku sameeyay xaaladda amni ee goobta iyo agabka loogu talagalay doorashada, halkaasi oo ay dhammaan ay ku dhan yihiin. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya senator Aadan Cabdinaasir ayaa sheegay in doorashada guddoonka la qabanayo maalinta beri ah, isagoo sidoo kale xildhibaanada iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb galaya doorashadaasi faray in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee ku shaqada leh goobta ay doorashada ay ka dhacayso. sidaa la socotaan guddigan shaqooyinka uu soo waday markii magacaabista lagu dhuftay 16 bisha afraad shaqooyin badan ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay 23 bishii hadal jeedintii musharaxiinta oo 12 musharax ay ka soo qayb galeen sida jadwalka musharaxiinta ee jadwalka doorashada 16 wax iska bedelay malaha 16 bisha afraad 2022 doorashada guddoonka aqalka sare waxay ka dhici doontaa teendhada Afisyooni maanta oo 25 ah. waxaan shir guud la galnay hay'adaha amniga ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir iyo saraakiil kale oo ka soo qayb gashay oo ay ku jiraan ciidamada AMSOM. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee nagula shaqeeyeen hay'adaha amniga saraakiishooda oo awaamiirta aan faraynay oo talooyinkii iyo waxyaabaha isdhaafsan oo aad ugu mahadcelinayno. sidoo kale shirka waxay naga soo qayb galay gudoomiyaha ku-meel gaarka ah guddiga doorashooyinka ee gudoomiyaha ku-meel gaarka aqalka sare oo isagana maalinkii inala magacaabay ilaa iyo maanta oo 25 ah inala joogo inala shaqeynayay, isagana aad ugu mahadcelinaynaa. sidoo kaleeto tiimkii farsamada inala soo shaqeeyay ilaa intan nala soo gaarsiiyay diyaar garowga ka muuqda maanta hoolka aad dareemaysaan, iyagana si gaara ugu mahadcelinaynaa. sidoo kaleeto sanatarada aqalka sare ee beri insha Allah wax dooran doona iyo guddoonka iyo marti sharafta waxaan ka codsanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo awaamiirta iyo habraacyada u soo dejin doonaan u sheegi doonaan. waxaan u rajeynaynaa insha Allah inay iyagana si dhow ula shaqeeyaan si ay guul inoogu dhamaato hawshan maalmaha badan soo socotay ee dalkan 2 sano soo socotay laga shaqeynayo doorashooyinka. waxaan rajeynaynaa insha Allah beri inay noqoto wax Soomaaliya oo dhan ay sugeysay. gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu sharaxan ilaa iyo 3 musharax oo ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya senator Saalax Axmed Jaamac, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya senator Cusmaan Abukar Dube, halka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare ay u sharaxan yihiin 2 senator oo kala ah senator Cabdixakiin Macalin Axmed, senator Cali Shacbaan Ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare oo iyagana ay u sharaxan yihiin ilaa iyo 7 musharax oo kala ah senator Cabdullaahi Xirsi Timacadde, senator Cabdi Cusmaan, senator Ilyas Bedel Gaboose, senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo senator Xasan Xuseen Xaaji. sidoo kale toddobaadkan gudihiisa ayaa xarunta teendhada Efisoni waxaa lagu qaban doonaa doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen, kuwaasi ay ku tartami doonaan musharaxiin dhowr ah. kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Karaash ayaa caafis u fidiyey in ka badan 50 ruux oo maxbuus ah oo ku xirna xabsiyada magaalooyinka maamulka Puntland. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray. kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash ayaa galabta warqad uu soo saaray waxa uu caafis ugu fidiyey 60 maxbuus oo ku xiran xabsiyada kala duwan ee magaalooyinka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka ayaa tala soo jeedin ka dhageystay wasaaradda cadaaladda iyo xafiiska difaaca xaquuqul-aadanaha ee Puntland waxa uu maxaabiistan u fidiyey oo cafiska uga fidiyey fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan iyo munaasabadda Ciidul Fitriga oo markaasi fooda inuga soo haysa dhowr maalmood oo keliyana ay ka dhiman yihiin. maxaabiistan ayaa ah kuwa ku xiran dambiyada fudud kuwaasi oo xukunadoodii ay wax yar uga harsan yihiin
sanad walba puntland ayaa xilligan oo kale cafis u fidisa maxaabiis si ay maalinta ciidal fitriga ay markaasi qoysaskooda farxadda ula qaybsadaan. cafiskooda ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli xabsiyada puntland ay ku xiran yihiin maxaabiis aada u badan kuwaasi oo qaarkood xukum sugayaala. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash oo markaasi maanta digreetooyin kale soo saaray ayaa waxa uu ku magacaabay agaasimo waaxeedyo iyo weliba sidoo kale guddoomiyeyaal degmo iyo kuwo gobol oo markaasi uu magacaabay. waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka puntland tan iyo markii xilka loo doortay uu magacaabo xilal noocaas oo kale ah, sidoo kalena uu cafis u fidiyo dad gaadhaya 60 maxbuus oo ku xidhan xabsiyada magaalooyinka puntland.